waxaa taliyaha booliiska oo warbaahinta la hadlay uu soo sheegay tirada dhimasho iyo dhaawac weerarkani uu sababay dadka shacabka ah iyo wariyaasha ayaa dhammaantood halkan ku soo qulqulaya iyagoo qof kastana doonayo oo ka mid ah inuu xog helo wariyaasha oo ku fogan inay soo tabiyaan wararka ku gadaaman qarxii ka dhacay hoteelka Riyaad ee magaalada Muqdisho ayaa saacado badan iyo maalmo kadib loo ogolaaday in ay booqdaan halkii qarxu ka dhacay goobtani waxay haddii ay halkani waxa ka muuqda magaalada Muqdisho oo ay weerareen koox markii ugu horeysay marka ku bilaabo qaraxyo ugu dambeynna ciidamada dawladda ayaa dusha sare ka muuqanaya iyadoo taas ay fasiraad cad u tahay in ciidanka dawladda ay ka adkaadeen kooxdii weerarka soo qaaday ilaa iyo hadda dawladdu faafin rasmi ah kuma sheegin tirada dhimasho iyo dhaawac iyo sidaas oo kale khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay qaraxan ka dhacay hoteelka Riyaad ee magaalada Muqdisho wararkan oo intan ka faahfaahsan wixii ka soo kordha adiga ayaa daawan doona oo ugu horeeya ee ila joog waxaan ahay Cali Aadan Muumin oo ka soo warramaya hoteelka Riyaad oo iminka laga sifeeyay kooxdii weerarka soo qaaday waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa joogtaba la socodsiiyo in howlgalkii ka socday Hotel Hayaat la soo afjaray xalay saqdii dhexe muddadii howlgalku socday hay'adaha amnigu waxay xoog saareen badbaadinta iyo badqabka muwaadiniintii goobta ku sugnaa waxayna ku guulaysteen badbaadinta dad ka badan 106 oo ay ka mid yihiin carruur iyo haween waxaa naxdin leh in meesha ay ku nafwaayeen dad shacab ah oo birmageyda ah tirada dadka ay wax ku gaareen goobtaas waxaa si faahfaahsan noola wadaagi doona wasaaradda caafimaadka hay'adaha amniga ahaan waxaan xaqiijinaynaa in khasaaraha nafeed ee uu ku beegnaa saacadihii hore ee weerarkaas ku raacnay uu dhacay intaa kadibna ciidamadu amnigu waxay ku howlanaayeen inay shacabka ka soo badbaadiyaan iyaga oo dadka qof iyo qolqol uga soo saarayay hoteelka waxaa ummadda Soomaaliyeed waxaa hadda meeshii ka socda nadiifin iyo muxuu ahaa xaaqid waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa inta la xaaqayo nadiifinayo inay u dulqaataan waxaan tacsi u dirayaa dadkii shacabka